Birmingham oo magaalo madaxda labaad ee dalkan Ingiriiska ayaa waxaa maanta taageero loo sameeyay xusbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SSUP xisbigaasi oo markii ugu horeysay uu yimaado magaaladan Birmingham xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan aqoon-yahano dad odayaala dad Soomaaliya magac weyn ku leh xafladaasi oo runtii hadaba ahayd mid aad u qiimo badan dadkii halkaasi ka hadlay waxa kamid ahaa hadii aan ka soo qaato waxaan rabaa kulligiin inaan idin yiraahdo ku soo dhawaada martida kala duwan magaalada Birmingham kulankan waxaan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga Somali Social Union Party iyo wafdiga kala oo socdo oo naga soo gaaray dalka Sweden duqada cali boolay oo kamid ah raggi ka soo asaasay leegal wax ka soo asaasay taagida calanka Soomaalida qayb ka soo qaatay sabtiin runtii maanta waxaan meesha u nimid xisbigan oo Yaasiin madaxda ka yahay la yiraahdo xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed marba hadii la yiri xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed macnaha waxa waaye xisbigan waa kii aan rajaynayno in kii Soomaaliya badbaadi lahaa inuu noqdo ayalay Yaasiin ilaahay khayr ha siiyo xisbiga hadduu wuxuu dhisay 6 sano waxyaalo badan ifafaalaha wax walba waxa la fiiriyaa ifafaalaha ayalay xisbigan ifafaalihiisa waxaa ka muuqata in uu yahay xisbi diyaar u halganka ummadda Soomaaliyeed xisbiga midnimada Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo dhalinyaradii leego ee ka dhisay wadanka Soomaaliya guntii iyo gabagabadii halkaasi ka soo jeediyay run ahaantii khudbad aad iyo aad u xiiso badnayd oo ka hadlayay xisbiga barnaamijkiisa oo halkaasi ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga Yaasiin mudan iyo marweyn waxa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waana idinka gudoomay sida sharafta leh aad soo dhaweyseen waadna ku mahadsantihiin waxa la weydiiyay laba arrimood ama aan iraahdee su'aalo la weydiiyay inay fiican tahay in halkan aan uga jawaabo yaa tahay warshad yaa tahay waxaan la weydiiyay maxaad halkan u timid labada su'aalood waxaan rabaa inaan sidan uga jawaabo yaa tahay nin shukriga Ilaahay shahaadada qiraan ah nin aan sharafta Soomaaliyeed shay siisan baan ah nin aan shuqulka gaaladan shabahaynin baan ah maxaad u timid waxaan u imid halkan inaad ka baxdaan qabiilka waxaan idinkugu imid inaad ila goobtaan qarannimada iyo sharaftii Soomaaliyeed waxaan idinkugu imid in aad Soomaali ila doontaan magaca Soomaali ila doontaan waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo 3 waxyaabood oo xaqiiqda dhabta ah ee ku wajahan dadkeena Soomaaliyeed waqtigan hadalka waxa haysta hogaamiyaal qaldan shacabka la qaybsan faragelin shisheeye 3daas waxay dhashay 4 waxyaalood oo 4taas maxay talin maysid ku talin maayo wada tashan mayno kala tagi mayno isla markaana la waayo jawi midnimo waa qodobadaas kuwa maanta hor yaal aan idinkugu imid ee aan rabno inaan iska kaashano wadayaal runtii xafladaasi lagu soo dhaweynayay xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan SSUP ee uu markaasi gudoomiyaha ka yahay Yaasiin Macalin run ahaantii dadweynuhu si aad iyo aad ah Birmingham ayay u soo dhaweeyeen Daahir Ismaaciil Xajaadan Universal TV Birmingham